ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ marka ugu horeysa waxaan salaamayaa dhammaan dadweynaha reer gaalkacyood ama gobolka mudug oo halkan maanta taagan oo u taagan inay muujiyaan muuqaalkooda ku muujiyaan codkooda ku muujiyaan soo dhawaynta iyo rabitaanka iyo isbeddelka uu wado urur siyaasadeedka mideeye waan salaamayaa dhammaantiin rag iyo dumar odayaal caaqilo dhalinyaro dhammaantiin waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu mar labaad waxaan salaamayaa soo dhawaynayaa wafdiga ballaaran oo hogaaminayo jenaraal asad cismaan oo inoo ka yimid gobolka bari inoo ku yimid inayna kala qayb galaan xafladdan ballaaran oo 8 maanta May oo ay doorteen inay madaxda ururka mideeye ku bilaabaan ka qayb galaan gobolka mudug arrintaasna waxaan filayaa dhammaantiin inaad xushmadeeda iyo karaamadeedii muujiseen inay madaxda ururka mideeyana dooratay inay ka bilowdo kaambeynkooda gobolka mudug idinkuna aad si fiican u soo dhawayseen waa ku mahadinaya waxaan ku soo koobayaa 2 qodob marka ugu horeysa waxaan leeyahay reer Puntland ama reer mudug waxaan leeyahay حديث واحد جرى رسولك وشاقي يري مسلم كان لما جر يا مسلم كان قد لما جر لقى ما وضع قنينه مر بينو خالدان ناي هاي ما اسمع علينا مر بينو خالدان ناي خالد كينا وايد ناي مرد ما ميانو نقرينا مرد ما خالدا وينا إلا وعنا خالد المردم به إلا مرد ما احنا خالد وعلينا إيمانتا فرصدنا كفايديسنو marka labaad fariin baan dirayaa waxaan u dirayaa dawladda Puntland madaxweynaha Puntland waxaan leeyahay ra'yi maaha dastuurku waa heshiis dadweyne waxaan kamid ahay xildhibaanadii dastuurka wax ka qoray waxaan leenahay qodob kasta oo dastuurka kamida waxa lagu saleeyay jiritaanka awoodda ka bixitaanka mudnaanta dadka reer Puntland baa lagu saleeyay ma wax ra'yi ku bedelmi karo qof leeyahay waxaan leenahay ka waantoobdo dastuurka Puntland waxa lagu saleeyay rabitaanka iyo jiritaanka Puntland saddexda xisbi waxa lagu saleeyay dhaqaalaha dalka waxa lagu saleeyay codka dalka waxa lagu sameeyay miisaaniyadda dalka ما وحرا iyo qofku soo doona ka yeeli karo waxa leenahay ha ka waantoween dastuurka Puntland wax kasto kale waa la farageliyay dhaqan baa la tuuray siyaasad baa la tuuray wada jirkii baa la tuuray xurmadii sharafta la tuuray dastuurka noo dhimanaa iyo 8 bisha January waxa leenahay ha ka waantay dawladda Puntland faragelinta khaaska ay u leedahay oo dastuurka oo aan talada Puntland iyo shacabka Puntland aysan qayb ka ahayn ha ka waantowdo qodobka saddexaad waxaan leeyahay ururada siyaasadeed waa u siman yihiin xuquuqda dalka waa u siman yihiin codka dalka waa u siman yihiin hantida dawladda xaq uma laha gaadiidka dawladda iyo wasaaradaha dawladda iyo hantida dawladda in lagu galbiyo oo meel walba lala maro oo waxa weeye dadka lagu abiyuuso حقو ماله ما يالينو ورميا يالينا ما يالينو هانتida dadka ninkii doonaya inuu tartamo hantidiisa ku tartamo hantida dawladda laga baxo baabuurta dawladda la dhigo ciidanka dawladda la adeegsanayo hala joojiyo waxaan ognahay askarta ciidanka booliska in lagu habaabulayo inay hor istaagaan dadkii soo bannaan bixi lahaa waxaan ognahay in kaararkii lagu haysto ma yeelayno toojarka hala joojiyo dalka iyo dadka toojarka laga joojiyo dadka qofkii karti isku haya hantidiisa ha isticmaalo codkiisa ha isticmaalo hala joojiyo war hala joojiyo dadweyne waa maqlaysaan diyaar baan u nahay cid allaaliyo ciddii isku dayda inay hantida ummadda iyo ciidanka dawladda
أي إذن استعماشو وكتشوابينا ضد الغاضن مينو ودفاعينا هدار بايدي شاقينا سوقد بيا وعن كور هينا كاممكي إن بوليس لقينيو إن عيدم لقينيو إن دادك اللي واحد شويو ما يالينو دولغادن برا ما سماينينو دولغادن بما سماينينو ورميا سماينينا واسكا علينا ما يالينو دولغادن ما يالينو waxaan doonaynaa si xorriyada in loo tartamo hantida dawladda in la dhigo dadku inay sinaadaan mar labaad iyo mar saddexaad waa idin salaamayaa waxaan leeyahay aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhammaan fanaanbaxaya sida qiimaha la soo dhawaysan ururka siyaasadeedka mideeye salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu